ra'iisul wasaaruhu wuxuu la kulmay amiirka dalka Qatar oo ay wada hadallo yeesheen kaasoo lagu soo qaaday si xoojinta xiriirka Qatar iyo Soomaaliya iyo oo awalba uu ka dhaxeeyay xiriir wanaagsan oo walaaltinimo marka ra'iisul wasaaruhu sidoo kale wuxuu kulamo kala duwan la yeelan doonaa madaxda ka qayb galaysa Doha Forum dalal badan oo ay ka mid yihiin wasiirka arrimaha dibadda Japan wasiirka arrimaha dibadda Kenya dalal badan ayaa soo codsanaya inay ra'iisul wasaaraha arkaan oo iyaguna u jooga kulankan loo yaqaano maaragtay fagaaraha Doha ama Doha Forum marka waa socdaalka ra'iisul wasaaruhu wuxuu ahaa mid guulo badan wata